dhawaan ayay ahayd markii ay soo shacbaxday kufsi loo geystay laba gabdhood oo yaryar oo Soomaali ah oo da'doodu ay ka yareed 5 sano. Arrintaasi ayaa waxa carag ka muujiyay bulshada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda jooga, waxaana baraha bulshada si weyn lagu hadalhayaa arrintaasi. Nimanka lagu tuunsan yahay arrintaasi ayaa la sheegay inay afduubeen gabdhaha ka hor inta aysan kufsan. Sheekh Nuur Xaaji Aadan oo ku magac dheer samafale waa Gudomiyaha Jaaliyada Koonfur Galbeed ee North America ayaa cambaarayay falkii kufsiga ahaa ee loo geystay labadaasi gabdhood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Anigoo ah Sheekh Nuur Xaaji Aadan Hussein samafale waxaan cambaaraynayaa falkii foosho xumaa ee ka dhacay degmada Afgooye ee lagu kacay laba gabdhood oo walaalo ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano. laba gabdhood oo saqiir ah in dhibaatadaas intaas la eg loo geysto aad iyo aad badan waxu nahay waan cambaaraynaynaa si adag aan u cambaaraynaynaa waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed in gabdhahaasi iyo waalidiintooda la helaan cadaalad sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Hirshabeelle qaranka Soomaaliya Suleymaan Maxamed oo ka hadlay arrintan waxaan rajaynayaa in keeskan la siin doono muhiimad gaar ah si ay ugu qoysqaataan kuwa kale ku fikiraya in waxyaabaha foosha noocan oo kale ay ka sameeyaan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed. wuxuu sidoo kale Guddoomiyaha baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya degmooyinka Daafeed iyo waliba Diinsor. waxaan sidoo kale baaq nabadeed u dirayaa dagaalada ka socda degmooyinka Daafeed iyo Diinsor. waxaan leeyahay walaalayaal dagaal wiil baa ku dhinta maanay wiil kuma dhasho nabadaanaas luuga leh waxaan codsanaynaa in dagaaladaas sida ugu dhaqsiyaha badan ayagana ma taqaanaa loo soo gabagabeeyo oo loogana helo nabad waarta dawladda goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexana waxaan ugu mahadnaqayaa dadaalka ay ka wadaan sidii arrimahan loo dhameyn lahaa si gaar ah waxaan ugu codsanayaa dawladda goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe in arinta Daafeed sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo maadaama maalin walba dhiigii iyo dhibaatadii ay sii socoto dadkana ay barakacayaan marka insha Allah waxaan rajaynayaa in arrimahan ay soo gabagabi doonaan. si kastaba ha ahaatee 20kii bishii March ayay ahayd markii gabar 7 sano jir ah lagu kufsaday deegaanka Ballanbale ee gobolka Galmudug. Deeq Darajo Universal TV Minnesota.